Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta kusoo dhawaada janaalka Caaqil Taj. Muuqaalkani maanta waxaan rabaa inaan isla sameyno marka website-kan aad u jeedaan. Website-kan wuxuu ka kooban yahay oo keliya one section kaasoo ah marka hero section-ka plus wuxuu kaloo leeyahay some animation. Waad aragtaan markaan refresh dhaho wuxuu sameynayaa animation-kan. Isagana waan sameyn doonaa waxaanan isticmaali doonaa Bootstrap. Daawasho wanaagsan muuqaalka. waxaad soo keensataa marka Bootstrap-ka documents-ka tag marka waxaad soo kobiyeysataa marka code-kan kaasoo ku qabanaya marka start up-ka Bootstrap-ka inta waxay ugu jiro marka folder-kan images-ka aan isticmaali lahay. Okay, waxaad soo furtaa marka index-kaaga waxaad dhigtaa marka code-ka awaday ku bedeshaa marka title-ka. waxaan kaloo u baahanahay marka navbar component-iga waxaad dhigtaa documentation-kan dale nav dheh. Okay, waxaad soo qaadataa marka midka aad rabtid inaad isticmaashid. kana isticmaalaya marka aniga copy dhaho code-kaaga imaaw ku paste garayso marka waxaad tirahdaa open with live server. Okay, hadda waad aragtaan live waa hadda website-keena navbar-kana waa kana waxaan u ekeysiinaynaa marka midkan oo kale. waxaad imaandaa halkan waxaad ka bixisaa horta bg white-kan. waxaan kaloo u sameynayaa marka fixed top inuu ahaado kor inuu ku dhegnaado ayaan u baahanahay. halkan imaa marka containerka fluidka ka bixi container caadi ka dhig navbar-ka loogadiisa soo geli marka halkan waxaad ku qortaa marka logo hoos usoo deg marka waxaad imaadaa ul-ka waxaa leenahay x axis-ka auto ka dhig soo macnaha bottomskan centerka inuu idhiga ayaan u baahanahay. waxaan leenahay gap of 3 kala sigta. meeshan waa home meeshan waa featureski meeshan kale waxaan ka dhigayaa marka saving. waxaa ii sameysaa marka duplicate ama copy waxaad ku bedeshaa marka payments waxaad igu bedeshaa halkan kale about-ki waxaad sameysaa meeshan kale iska xir soo shaashada kugu weynato disable ka qaad. waxaan ku dareynaa marka bottom-ki ul-ka gadaashiisa tag marka tirahdaa bottom wuxuu leeyahay marka class oo la dhahay btn text waa white. waxaan kaloo u baahanahay text capitalize. waxaan kaloo u baahanahay padding border 0 ah. waan fiirin doonaa isagan. hadeerkan marka laba shay lama arki karo loogadan ma arki kartid bottomkii kalena ma arki karno maxaa yeelay labadooda kalarkooda white waa. waxaan sameynaynaa marka inaan bedelno background-ka oo leeyahay marka naafka. si aan background-ka u bedeshid waxaad tagtaa qaybtan kore tag horta soo import garayso css-kaaga. hadda waxaa noo import garaysan css-keena. css-ka tag marka maxaa ku diyaarsan css-ka waxaa ii sameysan marka fonts-kana soo import garaystay google-keena google fonts. root-kana waxaa igu jiro variable kuwaasoo qiimo ii wadaan. waxaa kamid ah variable-adan ii wado qiimaha size-yada kala duwan. kuwan kale waxay ii wadaan kalarada aan isticmaali lahay. kuwan kalena waxay ii wadaan font families-ka aan rabay inaan ku isticmaalo project-kan. waxaad tagtaa marka body waxaad qortaa body-ga wuxuu wataa marka background body page waxaan leeyahay oo kale background repeat none
tirahdaa 100 v height. waxaan kaloo rabaa inaan sameeyo halkan imaaw naafka waxaa tirahdaa waxaa siisaa kalarkan naaf bg. okay waxaan kaloo u baahanahay section kaasoo paddingkiisu yahay 100 pixel kor iyo hoos ah, 0 pixel labada dhinaca. waxaan fiirinayaa marka waxaan samaysmay waad aragtaan. okay hadda waxaa inoo samaysa marka backgroundkii iyo naafka waxaan ka dhigaynaa marka textigan wide inaan ka dhigno, kan aan ka dhigo wax yar bold. waxaad aadaa marka halkan waxaad tagtaa qaybta kore ee naafka. waxaad tirahdaa horta naafkan waa daag, naaf bar oo daag ah. sidaas ayuu wuxuu ugu dhigaa marka textiga wide. waxaan kaloo u baahnayn bottomkan inaan font widthkiisa bold ah kaaga dhigo, font width bold. okay intaas waan sameynay, waan fiirinaynaa marka waad aragtaan kan waa bold, kuwan kalena waa wide. waxaan ku xijinayaa marka contactiga kale inaan sameeyo hero sectionka qaybtiisa gudaha. halkan imaam marka helowdan iska tir, waxaan leeyahay section id of hero. wuxuu leeyahay marka container kaasoo leh marka gudihiisa ku jiro row. wuxuu kaloo leeyahay column oo gaaraya 12, column oo gaarayo lg5. large screen responsive ayaan ka dhigo macna large screen 5 ha ahaado. okay intaas ayaan ka dhigay. okay waxaad soo gelisaa aan leeyahay h2. waxaan u aqaanaa subtitle. classkan ma samaysno laakiin hadhowd ayaan rabaa inaan isticmaalo. waxaan soo qaadanayaa marka qoraaladii aan ugu talagalay inaan meeshaas ku qoro. waxaan kaloo u baahanahay h1 oo title la dhahayo. qoraalkeeda ayaan ku qorayaa marka iyadana. waxaan kaloo u baahanahay descriptionkii. okay waxaan kaloo soo sameynayaa inaan soo import gareeyo marka imageka. waxaad tirahdaa column 12 column lg7 hero. waxaan u sameynayaa marka class loo yaqaano hero. okay waxaan sameynaa ayaa fiirinaya marka. okay qoraaladii aan soo geliyay marka waa kuwan. waxaan u style gareyn doonaa marka sida kan oo kale. waxaad tagtaa marka css kaaga. okay markaad imaado halkan waxaad ka bilowdaa marka title. waxaad tirahdaa marka kalarkiisa waa mid wide ah. waxaad tirahdaa font weightkiisa waa 700, font familkiisa waa 2. waxaan kaloo u baahnaa font size oo ah h1. waxaan kaloo u baahnaa marka line height. waxaan kaloo u baahanahay letter space 1 pixel, margin bottom oo gaaraya marka 1.5 rem. okay sidaas waxaan ugu baxa marka titleka. waxaad aadaa subtitleka marka subtitle. waxaad tirahdaa colorkiisu wuxuu yahay okay font sizekiisu waa 14 pixel, font weightkiisu waxay tahay 900,
margin bottom wuxuu gaaraya marka harim. Waxaad tagtaa marka qaybta description font weightkiisa ka bilow waa 400. waxaa igu xijisaa font sizekiisa waa b. waxaad igu xijisaa letter space 0.5 pixel. line height waxaad tirahdaa 24 pixel. colorka white waaye. opacity igu samee marka kaasoo gaaraya marka 0.6. ninka loo u baahanay margin bottom gaaraya marka 1.5 rem. sidaas waxaa ugu baxa marka descriptionka. waxaa ii sameysaa another class kale loo yaqaano div display flex ayuu leeyahay align item center. intaas ayaan rabaa marka. waad aragtaan fontiga wuxuu u muuqdaa marka sidatan. waxaan kaloo u sameynayaa marka inaan another size kale aan siiyo fontiga. halkaan imaam marka waxaad tirahdaa media kuule. waxaad tirahdaa only. meeshaan kale waxaad tirahdaa an min width 992. rootka marka iska xir. meeshaan waxaad ka dhigtaa marka xijwanka sizekiisa noqdaa leeyahay 3.5. kan waxaa leeyahay 75 pixel. kan waxaan ka dhigaynaa marka center inuu noqdo. html kaaga imaawo. halkan waxaad sameysaa waxaad dhexgelisaa container hero data. waxaad ku qortaa marka halkan def falaxy oo ka dhigaya marka kuwa center ah. waxaad dhexgelisaa marka group btn oo leeyahay marka buttonka ugu horeeya marka qoraalkiisu wuxuu yahay qoraalkaas ayuu wataa. wuxuu leeyahay marka class la yiraahdo marka btn. textigiisu waa white. font weightkiisu waa bold. margin bottom oo 3 ayuu leeyahay. padding x axis oo gaarayo 5. y axis ku gaarayo 3. wuxuu kaloo leeyahay border oo ah 0. wuxuu leeyahay rounded oo ah 5. ninka loo u sameynayaa marka id waxaan ugu magac daraa marka btn. waxaad tagtaa marka stylekaaga. waxaan rabaa waran in colorka ka bedelo waa marka hash btn. background colorkiisu wuxuu yahay btn color. waxaan fiirinaynaa marka koodkeena sida u muuqdaa dirtaan. waad aragtaan saan ayuu u muuqdaa marka. waxaan kusoo darayaa marka bottomkii kale waa isku mid labadooda marka. kan duplicate samee. waxaad ka dhigtaa marka id-gan. waxaad ka bedeshaa marka qoraalkan. waxa u muuqdaa marka sidatan. waxaan kaloo ilowsanahay marka qaybtan hoose waad aragtaan waxaa ka muuqdo xariiqmo cadaana. sizeka marka anaga waxaan dhahnay sizeka ha ahaado 100 v height. kaas ayaan wax ka taabanaya marka. baadiga imaan marka meeshan waxaad tirahdaa min ugu yaraan ha ahaado 100 v height. waad aragtaan markaad dirtaan. haddii aan fiirino marka design-keena maxaa naga maqan iconkan inaan soo geliyo. waxaad tagtaa marka bootstrapkaaga. waxaad taabataa iconiska. iconka ratid marka search gareyso. before intaanan icon ka qaadan horta waa inaan import gareeyaa linkiga aan ku isticmaali lahay iconiskan. halkaan imaan marka copyes linkigaas. koodkaaga tag. waa soo import gareeya markaad dirtaan. waxaad soo qaadataa marka iconka u baahneed. anaad kana u baahanaa marka soo kobiye. waxaad imaadaa marka xigtooga. waa spaceka html-ka. fiir marka sidoo u muuqdo. waad aragtaan waxaa inoo kaloo dhiman inaan sameyno animationkii. waxaad doontaa marka library-gan waa javascript library. waxaa loo yaqaanaa scroll reveal.
waxaad tagtaa marka qaybta guideline-ka waxaad soo koobiyeysataa marka qaybtan waxaad tagtaa marka bottom of badigaaga halkaas dhig marka waxaan kaloo u baahanaa marka script halkan ayaan ku qorayaa marka js-ka waxaad ka bilowdaa scroll reveal reset through waxaad kaloo dhacdaa distance waxay la mid tahay markaas aniga 50 pixel waxaan kaloo u baahanahay duration kaasoo gaaraya marka 2000 delay oo gaaraya marka 400 waxaad sameysaa marka si aad u isticmaashid waxaa wacaysaa marka scroll reveal dot reveal marka wuxuu qaadanayaa kalaaskii iyo waxa aad ka bedeli lahayd waxaan ogeyn marka kalaas la dhahayo inuu sameysnayo subtitle delaygiisu wuxuu gaaraya ayaan leeyahay 600 waan fiirinayaa marka waad aragtaan refresh dah waxaan sameyn doonaa marka title-kane leeyahay delay of 700 gaar halkan ka bedel marka kalaaska loo yaqaanay title waxaad sameysaa oo kale description-kii marka mar walba inta waxaa ka wacaysaa kalaasyada kuu sameysnaay oo kaaga sameysnaa marka qaybta kore ee html-ka description-ka waxaa leeyahay marka asagana waxaad gartaa 900 waxaan rabaa oo kale inaan wax ka bedelo group btn waxaa ku jira wax loo yaqaano buttonkaas waxaan leeyahay idinku qaadato marka 1000 delaygiina waxaa kaloo u sameysaa interval inay soo kala hormaraan macnaha 200 ninka loo u baahanahay imageka inaan kalaas u sameeyo waxaan u bixiyey marka hero isagana inta ayaan ka wacayaa waxaan leeyahay hero intervalka iska bixi marka meeshan kalena waxaad ka tiraahdaa 900 delay ah origin ka imaada marka right-ka right waan fiirinaynaa marka waxay noo sameysa waad aragtaan animationkii oo idil waan ku soo daray waad ku mahadsantahay marka daawashadaada haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalkaani ha ka ilooban janaalka inaad subscribe saartid asxaabtaada kala gaarsiisid muuqaalkeena maanta intaas ayuu inoogu egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh